السلام عليكم صاحبيال kusoo dhawaada qodobada wararkeena ugu doorka roon waxaana kamid ah General Odawa Yusuf Raga oo fariin halis ah u diray ciidamada NISA iyo Mahad Salaad madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud iyo madaxweynaha Eritrea Isaias Afwerki oo kala saxiixday heshiisyo laba geesood ah iyo Xasan Sheikh Maxamuud oo ku soo laabtay magaalada Muqdisho dhibaatana ay ka taagan tahay wadooyin badan oo loo xiray ahaatana ku soo dhawaada daawadayaal warkiyo faahfaahsan ka dhigaan waa inay dariiska dhigaan kadibna waa inay xaafadahooda aadaan taliyaha ciidamada qalabka sida ee dowladda federaalka Soomaaliya mudane General Odawa Yusuf Raga ayaa fariin cad u diray ciidamo ka tirsan NISA oo hogaamiyo Mahad Salaad iyo ciidamo kale oo ilaalo khaas u ah siyaasiyiin kala duwan Odawa Yusuf Raga ayaa ugu baaqay ciidamadaasi sida ugu dhaqsaha badan inay dharka dhigaan hubkana dhigaan kuna laabtaan xaafadahooda Odawa Yusuf Raga ayaa sheegay inay bilaabi doonaan roondooyin badan ay ku sameeyaan magaalada Muqdisho cidii ay ku soo qabtaan magaalada Muqdisho inay ku dhex marayaan dhar dariis ciidana inay gacan bir ah ku qaban doonaan dhanka kale Odawa Yusuf Raga ayaa ugu baaqay madaxda NISA ugu horeeya Mahad Salaad inuu joojiyo ficilada noocan ah in la kala garan waayo argagixisadii ama booliiskii Odawa Yusuf Raga ayaa sheegay in cidda xaq u leh inay sugto ammaanka magaalada Muqdisho kuna dhex marto hub ama dhar ciidan ay tahay ciidamada qalabka sida dhanka kale Odawa Yusuf Raga ayaa ugu baaqay bulshada ku dhaqan magaalada Muqdisho inay kala qayb qaataan sugidda amniga mudooyinka dambe waxaa soo ifbaxayay khilaaf weyn oo u dhaxeeya Mahad Salaad iyo Odawa Yusuf Raga arrintan ayaa ka bilaamatay kadib markii Mahad Salaad uu beegsi ku sameeyay saaxiibo aad ugu dhow Odawa Yusuf Raga kana qaaday xilalkii qaarkoodna ka wareejiyay staafkii ilaalinayay madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud iyo madaxweynaha Eritrea Isaias Afwerki ayaa kala saxiixday heshiisyo laba geesood heshiiskan oo ah heshiis la mid ah una dhow heshiis uu la saxiixday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Isaias Afwerki ayaa sheegaya iskaashiga labada wadan dhanka dhaqaalaha ganacsiga amniga iyo isdhexgalka bulshada ilo xoogagaal aan helayna ayaa sheegaya in heshiiskani uu yahay heshiis hordhac ah lana sugayo heshiis ay dowladda Soomaaliya la gali doonto Eritrea oo dhigaya lacagtii uu dalbaday madaxweynaha Eritrea oo gaaraysa $50 milyan dowladda Eritrea ayaa ka aqbashay dowladda Soomaaliya in على بيل أي دولة الصومالية ديبتو لعق جاريس 5 مليون لونا سعريو عيدن كذا سيدا وقول دقصها بدن الدولة الصومالية أيا كعد ستي دولة إريتريا إن طبعا بلود جدوهد أي كوب بحين دونتو لعق تاسي كونتن كمليانا بالكستانا ودي بوسيت جرين دونتو دولة إريتريا لعق جاريس 5 مليون دولار الدولة الصومالية أيا شكت إن يكون أدكتاي حالة ده هذا اللي وجرو إن هالمر بحسوك $50 مليون sidoo kale madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud ayaa la sugayaa inuu u safro maalinta Jimcaha ee soo socota wadankaas iyo Qatar halkaas uu ka codsan doono dowladda Qatar inay ka taageerto lacagtani magaalada Muqdisho ayaa subaxnimadii maanta ku waabareysatay xirnaanshaha wadooyin aad u waaweyn oo halbowlo u ah magaalada sababta ayaa lagu sheegay madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud oo duhurnimada maanta ku soo laaban doona magaalada Muqdisho الروب بأن أكد أي مقالة iyo wadooyin qaar oo ay noqotay dhiiqo ay shacabku ku adkaatay inay lacagahooda maalaan sidoo kale ciidanka madaxtooyada ama ciidamada sugan amniga madaxweynaha ayaa si khasab ah dadka shacabka uga kaxeeyay hareeraha wadooyinka xirayna dukaamadii ugu waaweynaa magaalada Xasan Sheikh Maxamuud ayaa ku soo laaban doona magaalada Muqdisho duhurnimada maanta kana soo laaban doona dalkaasi Eritrea daawadayaal waa naga intaas wixii war ah ay maanta na soo gaaray fadlan haddaad kanaalkeena ku cusub tahay subscribe noo saar wixii faalo ahna noogu reeb qaybta commentiga ah mahadsanidin